tusaalaan kan oo kale wuxuu ahaa border solid ah, kan waa mid dashed ah sida aan hore kugu tusay. Kanna waxa weeyaan markaasi mid double ah. Waxaan u gudbaynaa markaa padding and margin. maxay ku kala duwan yihiin padding iyo margin? Margin waxa weeyaan areada u dhaxaysa laba shay. tusaale ahaan iminka bogoska haddaan haysto marginkiis wuxuu noqonayaa hareeraha. laakiin ka waran haddaan shayga shay kale kusii dhex haysto, marka shayga gudaha ku jira iyo shaygan dibadda inta u dhaxaysa ayaa markaasi padding la yidhaahdaa. waxaa arkaysan intaa gudaha ku jirta oo dhani inay wada padding tahay. tusaalaan halkan oo kale waxaan ku haystaa box, halkan waxaan ku haystaa text. waxaan arkayaa markaasi textka iyo geeska inta u dhaxaysa inay padding tahay. bogoska iyo hareerihiisa inta u dhaxaysan inay margin tahay markaasi. haddaynu markaasi tijaabino paddingka haddaynu ku bilowno, iminka halkan box baan ku haysanaa ay text ku dhex jirto. okay, waxaan odhanaynaa box eedeena waxaan odhanaynaa padding left. waayo waxaan rabnaa halkaa leftiga inaan markaas ka soo yara durkino gidaarka. waxaan odhanaynaa tusaalaan 10 pixels. waxaa arkaysaa inay ka soo go'day markaas ama ka soo durugtay markaasi gidaarka textidii. tusaalaan waxaa kaloon odhan karaa padding top, iyadna waxaa ka dhigtaa tusaale ahaan 20 pixels. marka inay dhinacaa sare ka soo durugtay waad arkaysaan markaasi. haddaynu padding leftiga badin oo nidhaano 30 ka dhig, textidii markaas halkaas ayay tegaysaa. sidoo kale waxaa isticmaali kartaa padding wuxuu leeyahay padding left, padding top iyo padding bottom oo noqonaya markaa hoosta. inaga hoosteena iminka saas okay weeyaan, ma baahninayn wax ku samayno, laakiin waxaan ku tusayaynu padding bottom. sidoo kale wuxuu leeyahay markaasi padding right oo haddii aad doonaysiinaa textda dhinacaas kasoo durkisid ah. sidoo kale imika waxaa arkaysaan inaan dhowr jeer kusoo celcelinay paddingkii. sidoo kale paddingka waxaa odhan kartaa haddaad doonaysid padding, deetana waxaad qori kartaa top. dhinacaas waxay noqonaysaa top, halkaasna waxay noqonaysaa right, halkan waxay noqonaysaa bottom, halkan waxay noqonaysaa left. deetana hakad baa siinaysaa. yacni halkan waxaa ku qoraysaa inta pixels ee rabto inuu dusha ka soo go'o. tusaalaan waxaabaan rabaa halkan topta inuu noqdo 20 pixels. right-ka waxaabaan rabaa inay noqoto isna 20 pixels. bottomkayga waxaa rabaa tusaale ahaan inuu noqdo isna 10 pixels. leftigana waxaa rabaa inuu noqdo 10 pixels. marka saasoo kale isagana u qori kartaa. ama haddaad doonaysid inay dhinacyadoo dhan isku wada mid noqdaan, waxaa odhan kartaa padding 20 pixels. marka dhinac kasta imika top right dhinac kasta 20 pixels ayaan nidhi. haddaynu intaa ku wada darno dhammaantood 20 pixels, padding 20 pixels. marka waxaan arkaynaa inuu markaasi sidaas noqday. okay, marginka ayaan ku xigsiinayaa markaas. marginku waxa weeyaan maadaama paddingku uu ahaa labada shay ee isku guda jira inta u dhaxaysa, marginku waxa weeyaan markaasi labada bogos ama laba shay inta u dhaxaysa iyo shaygii hareerihiisa. waxaan rabaa markaa inaan bogoskan ka durkiyo kana wax yar hoosta ka durkiyo maadaama aad iskugu dhadhow yihiin. marka waxaan odhanayaa margin bottom, yacni hoostaan rabaa inaan kasoo durkiyo. kani waa box C, marka box A haddaan tago waxaan odhanayaa markaa margin bottom. inteen ka durkiyaa markaasi waxaa qoraysaa markaas inta margin ee aad rabtid inuu markaasi kasoo durko. haddaan ku bilaabo marka hore intaana margin bottom odhan dhinacan inuu kasoo yaro durko gidaarka,
waxaan oranayaa margin left deetana waxaan qorayaa inta pixels rabo inuu kasoo durko haddaynu idhaahno 40 pixels waxaa arkaysaa inuu gidaarkii kasoo hero durkay 40 pixels okay margin bottom margin bottom waxa weeyaan markaasi halkan hoose inta uu markaasi ka durkayo isagana bal waxaad tirahdaa 110 wax yar ayara kala durkaan marka waa kaas intaas ayay markaasi kala durkeen intaa in leego kale haddaan ku qoro boxbina si isna ugeera durko waxaa arkanaa inuu markaasi ka durkay boxi isaga waxaan u baahanay keliyaata inuu leftiga kasoo hero durko uma baahni bottomka inuu sii durko marka waxaan odhanaa margin left 40 pixels si uu markaasi ula simo markaasi kuwan kale intaa marka waxaan kaga baxnay isagana margin iyo barim waxaan rajaynayaa inaad fahantay waxaan isku dayay sida ugu fudud inaan kugu sharaxo waxaan rajaynayaa markaasi inaad fahantay haddaynu hore usii socono markaasi waxaan ku xigsiin doonaa propertyga la idhaahdo float float waxa uu qabtaa inuu shaygan qaado uu markaasi meel kala dhigo oo tusaale waxaan rabaa inay bogosyadani isdhinac yaalyaalaan waxaan odhanayaa markaasi float left dhammaantood waxaan wada odhanayaa float left yacni inay markaasi dhinaca leftiga u float garoobaan waxaan arkayaa markaas inay saddexdiiba isdhinac yimaadeen float left waxaa kaloo isticmaali kartaa float right haddaad doonaysa shaygii inuu dhinaca midigta markaasi tago markaas haddii iminka aan rabo saddexdan shayba inaan isla soo qaado oon soo durkiyo waxaan samayn karaa mid walba waxaan ku qori karaa halkan margin top deetana waxaan ku qori karaa intaan rabo laakiin haddii aynu halkan html-keena tagno html-keena haddaynu tagno saddexdii bogosba waa kuwan waxaan idhi saddexda bogosba ka hor haddaan ad ku xidho ama div ad intaan sameeyo aan idhaahdo container yani containerkaan haysano weeyaan deetana xidh deetana aynu markaa divka bartan ka xidhno sida arkaysaan containerkani waxa uu hayaa iminka saddexdan shaybay si ay ku dhex jiraan marka waxaa halkan aan tegayaa meeshaan haddaan halka sare ku qoriyo haddaan halka hoose ku qoro baa isku mid laakiin bartan ayaan dooranaya inaan ku qoro maadaama aynu ad usoo bixinay hadda oo nidhi waa ad waxaan ku bilaabanaa css-ka markaan qoran wax weeyaan markaas hashtag deetana waxaan qorayaa magacii uu lahaa horta kan hoos iga bixi deetana container curly braces baan furayaa waxaan rabaa markaasi inaan containerkaygan uu noqdo tusaale ahaan intaas dhan inuu haysto marka hore waxaan qorayaa widthkiisa tan wax kale ku bilaabin waxaan onayaa maadaama aan doonaya mid ballaadhan intaas oo dhan ka dhig yacni muraayadoo dhan shaashadoo dhan haydkiisana imisaynu ka dhignaa haydkiisana waxaan ka dhigayaa markaasi 400 pixels colorkan markaas backgroundkan u samaynayaa markaa wuxuu noqonayaa background haddaan idhaahno rgb sababtaan marna hexadecimal u isticmaalay marna rgb u isticmaalay marna magaca caadiga u isticmaalay waxa weeyaan waxaan doonaya inaad ku traingaraysid ama aad ogaatid inay jiraan saddex qaab oo loo qori karo 224 redkayga inuu noqdo red badan hakad greenkayga inuu noqdo 151 bluegana isku midba ka dhig 151 deeta markaan saa idhaahdo waxaan arkayaa markaas in uu containerkaygii intaas noqday oo dhammaantood saas markaasi ugu dhex jiraan laakiin dusha sare ayaan rabay inaan kasoo durkiyo
waxaan odhanayaa markaas margin top waxaa ka dhigi kartaa markaa margin topka 100 pixels tusaale ahaan marka intuu imid halkuu imid oo inaga markaasi arkayna haddaynu ka soo yaro durkino kuwan oon hoosteera keeno waxaan odhanaa box a margin top 70 pixels tusaale ahaan marka halkaa dhexda xoogaa yara yimid sidoo kale box b dana ku samee margin top 70 pixels kana markaasi ku samee margin top 70 pixels marka hadda waxaan rajaynayaa inaad fahantay margin wuxuu qabto iyo wuxuu yahay padding float colorka inaad fahantay backgroundka sidoo kale inaad fahantay ayaan rajaynayaa muuqaalka intaasaan kusoo gabagabeynayaa fadlan haddii aad jeclaatay muuqaaladan subscribe saar alarmigana taabo si markaasi lagu wargeliyo marka aan soo geliyo muuqaaladayda